ururka ay ku midaysan yihiin saxafiyiinta qurba joogta Soomaaliyeed ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano SEJASS Somali Exiled Journalists Association ayaa ku qabtay magaalada Nairobi xuska Maalinta Warbaahinta Soomaaliyeed oo ku beegan 21 Janaayo. xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen SEJASS ayaa waxaa ka soo qayb galay saxafiyiin fara badan oo Nairobi ku nool, siyaasiyiin, xildhibaano, saraakiil ka socotay xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo marti sharaf kale. gudoomiyaha ururka saxafiyiinta qurba joogta Soomaaliyeed ee SEJASS Ustaad Maxamed Cusmaan iyo khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay munaasabadda ayaa ku dheeraaday muhiimadda iyo faa'iidada ay u leedahay bulsho kasta warbaahin. gudoomiye New York ayaa sheegay in ururka saxafiyiinta qurba joogta Soomaaliyeed ay ku dadaalayaan inay mideeyaan dhammaan wariyaasha Soomaaliyeed iyagoo ka faa'iideysanaya munaasabadan, gaar ahaan kuwa ku nool Nairobi, si warar iyo barnaamijyo horumar leh ugu tabiyaan shacabka Soomaaliyeed kana shaqeeyaan nabadda dalka iyo dadka. inta kadib waxaan jeclaan lahaa dadka ku abtirsada saxaafadda ama warfaafinta waxaan leeyahay maanta waxa laga joogaa 39 sanadood maalintii loo asteeyay maalinta warfaafinta Soomaaliyeed waxaan moodaa anagu inaan niri maalinta saxaafadda baashi waan koobnay, laakiin maalinta warfaafinta ama maalinta warbaahinta marka la yiraahdo waxa ku jira fanaaniinta ku jirta dadka gabiya cid kasta wax qortaa ku jirta, marka baasheenan koobin halkaas waan saxayaa. waxa weeyaan waa maalinta warfaafinta Soomaaliyeed, waa maalin da'deedu naga weyntaa intaan halkan joogna, waa 39 sanadood laga yaabo dadka qaarkiis inay halkaas jiraan. marka waxaan jeclaan lahaa maalintaas loo asteeyay waxay ahayd markii afka Soomaaliga madaxweynihii hore Soomaaliya uu asteeyay in luqadda Soomaaliyeed la qoro. marka haddana waxaad arkaysaa iyadoo 39 sanadood laga joogo afka Soomaaliyeed intaas uu qoran yahay, marka website-yada akhrisato in qoraallo badan oo qaldan ama isticmaalka ereyga iyo sida loo adeegsaday ama sida higaadiisu tahay oo aad u qaldan, iyo qofkii wax qorayay saxaafadda sheeganayo si qaldan wax u qoray wax loo dul qaadan karo ama la jeclay. marka waxaan codsanayaa in haddaan nahay bahda warfaafinta arrintaas oo kale aan ka gelgelano. sidoo kale waxaa munaasabadan ka soo qayb galay oo hadallo kooban ka jeediyay milkiilaha shabakadda afka dheer ee Daniel oo kamid ah shabakadihii ugu horeeyay ee Soomaaliya laga hirgeliyo, isagoona ku dheeraaday muhiimadda iyo faa'iidada ay leedahay maalinta warbaahinta Soomaaliya oo ku beegan 21 Janaayo. waxaana sidoo kale u mahadceliyay ururka SEJASS oo soo qaban qaabiyay xafladan qiimaha iyo qaayaha leh iyagoo ku nool magaalada Nairobi si qaxootinimo ma aan kala qayb galo xaflad si weyn maga noo taabanayso oo ah maalintii saxafiyiinta Soomaaliyeed. waa wax lagu farxo. saxafi hadaad maqashid waa midka dal haduu hormaro oo dalkaas ku hormaray. hadaad arkaysaan reer galbeed nagama lacag badno, nagama dhaqaale badno, waxa kaliya ay ku hormareen waxa waaye waa saxaafadda. annaga saxaafadda si qaldan baan u aragnaa, madaxdeena si qaldan bay u arkaan, laakiin madaxda reer galbeedku si sax ay u arkaan. adiga qaladkaada hadii la sheego waa isasaxaysaa, laakiin anaga madaxdeena hadaan wax ka sheegno wuxuu ku leeyahay reer hebel ahaan buu ii necab yahay, wuxuu ku leeyahay waxa journalkaas micnaha bariyahan shuruur ma siin, shuruurkii aan siin darteedu warkaygu xaqlinayaa. marka anaga waxaan leenahay qofka saxafiga marka hore waxa looga baahan yahay dhexdhexaadnimo sida uu sheegay New York, waayo hadaan adiga dhexdhexaad ahayn waxba ma toosi kartid. micnaha dal burbursan oo dhowr iyo 20 sano maalinba koox iskaaga durdurinaysay ayaa nooga baahan inaan dhisno. waxa kaliya lagu dhisi karaana waa saxaafad oo dhexdhexaad ah oo toosiso madaxa wadanka ugu fiican u raadisa dalka dadka u soo bandhigto ninkoo ka fiican yahay, adoon aan u arag ninkaan inuu reerkaada yahay, adoon u arag ninkaan inuu nin jeeb weyn yahay, adoon u arag ninkaan aad u fiirisidoo kaliya ninkaan inuu dalka badbaadin karo. marka anigu saxafiyiinta taas baan kula talinayaa. dhinaca kale qadka telefoonka ayaa waxaa munaasabadan uga qayb qaatay injineer Yariso oo ah wasiirkii hore ee warfaafinta dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya isla markaana hadda ah afhayeenka xukuumadda, iyo xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalxa iyagoo uga mahadceliyay ururka SEJASS oo xafladan soo qaban qaabiyay qaabka wanaagsan ay u maamuseen munaasabadan, isla markaana waxay hambalyo ugu direen dhammaan wariyaasha iyo warfaafinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan munaasabadan ku aadan maalinta warbaahinta Soomaaliya.
qaar ka mid ah saxafiyiinta Soomaalida ee ku nool wadamada Yurub iyo Waqooyiga Ameerika ayaa iyaguna qadka telefoonka uga qayb qaatay xuska maalintan. Ururka SEJASS ee Qurba Joogta Wariyaasha Soomaalida ee ku nool wadanka Kenya ayaa iyagu alaaba sanad kasta qabta xuska Maalinta Warbaahinta Soomaaliya oo ku beegan 21 Janaayo iyo waliba munaasabadaha kale ee ku wajahan warbaahinta caalamka iyo gudaha. Ibrahim Gedow Biibbo S24tv Nairobi.